الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ku sugan yihiin daafaha caalamka waxaan doonayaa inaan la wadaago fariin caafimaad anoo ku hadlaya afka xarunta caafimaadka bixisa Central Medical College inaan ka hadlo cudurkan saameynta weyn ku yeeshay adduunka ee loo yaqaan COVID-19 ama coronaviruska waxaan doonayaa in la wadaago talooyin aan gaarsiinayo dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Somaliland si ugu taxadir lahayn cudurka maadaama uu soo gaarayo oo la sheegay hadda in goobo kamid ah ama wadamo kamid Afrika lagu ogaaday xanuunka coronavirus ka wada warqabno waa ka dilaacay Wuhan oo ku taala China magacan COVID-19 waxa uu bixisay WHO ama World Health Organization كلمة كورونا حكى لي أنت فيروس كني وزيرو وي وجوبا توش نحكي ليه مركب بروتينز بروتشكتي وكسر تاجن صوته سيقول بحي مركب كورونا فيروس و large family of viruses وي كورونا فيروس هو وكوحنا شيء كم يتكلم فيروس سداس وكقرا حي لما تكي لبده يكون سجالات ماكي تلك تشينا جارهم وهان وكسر في مركب حويانك أو سنوتك بسيسوي transmission is marka laga hadlayo viruskani wuxuu asiibo saameeyaa habdhiska neefsiga ama respiratory systemka viruskani inta badan wuxuu ka galaa qofka T-zones wax la yaqaan sanka afka iyo indhaha sidoo markuu indhaha iyo sanka iyo afka saddexdaas mid sidoo uga gelaya wuxuu ku geli karayaa qofka ku sameeyo qufac ama ba hindhiso cough or sneezing uu sameeyo wuxuu wada viruskani inuu 1 mitir ay macnaha iskiisu on kara teeda kale ku dul noolaan kara oo gooyinka markaas sida miisaanta kuraasta mobilada qalabka loo isticmaalay viruska markuu qofka ka galo respiratory systemka si toos ah wuxuu abaara marka lungs-ka kaasoo ka dhalay marka infection kan wax ka dhalay markaas septic shock wax la yaqaano taasoo keenaysa qofka in dhiiggiisa hoos u dhaco blood pressure-ku macnaha hoosteeda in qofka marka uu naqas ku qabto oo dhiiga xambaarayo kaxaynaya marka oxygen-ti oo RBC-ga qaadayo qofka markaas cawaaqibada kale ku keeni karayo waxa kamid ah pneumonia oo inflammation of the lungs iyo caabuq keeno waxaan kaloo marka doonayaa in la wadaago viruskan coronavirus wuxuu halis ku keenay wuxuu ku fidayaa hawada weeye waxaan dirayaa 3 fariimood oo mid la xiriiro qofka cudurkan qaba haddii lacag ku dhaco iyo dhalinyarta iyo bulshada aan qabin cudurkan iyo macnaha sidee looga taxadiri karayaa haddii aad shaqaale caafimaad oo lagu keenayo dadka cudurka qabay waxaan ku horeynayaa markaas bulshada si hortii karaysa waxay hortii karaysa number 1 in isku socodka la yareeyo oo haddii meel cudurkan ka dhaco aanad u socdaalin haddaad ku jirtaan aad ka bixin in aad iska ilaaliso meelaha dadku isugu yimaadaan maadaama hawadu ku faafayo oo air droplet ku faafayo waxa loo baahan yahay kale inaad ka taxadirto qof hadaad aragtay kaf ama sneezing oo kale ama ba fever fara badan leh 2 mitir wax ka badan maadaama 1 mitir ku faafayo inaad ka fogaato qofkaas soo kale waa qofku markasta farxasha hand washing sameeyo waxay ka taxadirayaan inaana T-zones ka taabanin oo maadaama meelahan wax ku qofkan hadduu qof cudurka qabo iska mariyo meelahan duuf ama ba candhuuf oo kale ku tufo siminaad adiga si fudud adigu qaadan cudurkii wanaad ka taxadirtaa waana marka faraxalata markasta oo wax qabato xakro haddii aad aragto qof leh qufac haddaad aragto qof leh hindhiso haddaad aragto qof leh xumad fara badan ka fogow wanaad ka fogaataa hadduu qofka sameeyo qufac hindhiso ama dareerihiisa ka imanaysan ka afka oo meelahaas ku tufo kaasoo viruskaas awood u leeyahay ku dul noolaado ama candhuuftan qofku soo tufaya viruska la socda awood u leeyahay ilaa 1 mitir inuu socon karo haddii markaas si aad ugu isticmaalo waa faraxalata markasta kuna faraxalata waxyaabaha marka jeermis baabiyaasha sida saabuunta oo kale ama alcohol oo kale ama dhitosh oo kale waxyaabahaas kale inta badan faraha marsato oo ku faraxalato loo baahan yahay waxaan dareemaa marka cid aan cudurka qabin haddii cudurkan aad isku aragto la xiriir xarunta caafimaad ee kugu dhow cudurkan waxa lagu ogaan karaa muddo معناها شن الشقة
ayuu macnaha jirka bini'aadamka ku jiraya kaasoo aan la ogaanin incubation period loo yaqaano haddii aad isku aragto qufac fara badan hindhiso fara badan xumad fara badan la xiriir goobta caafimaadka markaas xarunta caafimaadka marka xarumaha caafimaadka isbitaalada kale ama dhakhaatiirta waxaan kula talinaya markaas inay shaqaalaha caafimaadku markasta faraxshaan maadaama iyagu patientkii contact la sameynaya waxaan kaloo sheegayaa in shaqaalaha caafimaadku xidhaan maskiga oo aan isku hadlaynin markaa surgical maska ama kan yar yar ee buluuga oo xidhaan markaas maskiga weyn ee loogu talagalay maskigan markaas isagu wuxuu awood u leeyahay inuu daboolo ilaa sanka dushiisa ilaa afka uu daboolo ilaa garhka ku xirmaya markaas siina cambuurta qofka kusoo gaadhay markaad samaynayso weliba procedureska intubation qofka oo samaynayso kale amaba CPR oo samaynayso waa in qofka markaa haddii kugu soo qof coronavirus qaba waa inaad xidhataa goonkaagii dheeraa waa inaad miyaarad xidhataa maadaama indhaha uu ka gelayo viruska cambuurtiisa hadday indhaha qofkan qaba kaasoo gaadho lacala bahda caafimaadka in ay ilaahay ku xidhnaadaan oo ilaahay tala saartaan cudurka ilaahay baa haya in qof kasta ilaahay tala saarto teeda kale fariintan kale gudbinaya waxa weeye yina aaminin macnaha cudurkan ummadda muslimiinta kuma dhacayo uu ku dhici karaa oo virus ma yaqaano waa muslim iyo muslim ah vaccination male labada kun iyo koob iyo soo saaraya markaas waxa kula tacaalaan oxygen lagu xiro waa supportive curate wali ma jirto waa in la support gareeyo qofka in fluids lagu xiro ama dareerayaal biyo badan la siiyo in qofka markaa uu oxygen lagu xiro antiviral drugs kii isticmaalaya markaa antiviral drugs iyo kuwa HIV oo kale oo loo ogaaday kaysaska qaar ku response gareeyay ama ku dawoobay like wadamadan Europe oo kale iyo China oo kale way isticmaalaan oo Ebola virus kale way isticmaalayeen markaas waxa kaloo la sheegay dadka u nugul cudurkani waa dadka ka weyn inta badan 60 sano maadaama qof markuu sii weynaado immunity sii daciifayo halis ugu jiraan dadka smokers ka sigaarka caba dadka isticmaala inta badan dadka le samabada ay xanuunayaan xaalad caafimaad xagga samabada kale uu nugul yahay marka macaanka dadka dhiig kale marka dadkaas risk factor buu ku jiraan waxa laga baxayaa ilaahay ayna inuu midgeliyo waxaan ugu ducaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ku dhacay in ilaahay ka caafiyo in ilaahay inagana inaga hayo laakiin taxadiraad ayaa loo baahan yahay dheeraada in la sameeyo